munaasabada Ciidul Fidriga ayaa si weyn looga dareemaya magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer maraan saaka aroornimadii hore u kurgalay sida ay tahay xaaladda magaaladu ayaa waxa indhaha iyagu qabteen boqolaal dadweyne ah oo qulqulaya goobaha lagu gado dharka ciida sida ay ugu gadaan ubadkooda iyo nafahooda dharka ay ku ciidi lahaayeen maalinta farxadda u ah muslimiinta adduunka oo dhan ee Ciidul Fidriga markii aanu gaadhnay goobahani lagu kala iibsanayay dharka ciida ayaa waxaan halkaas kula kulanay qaar ka mid ah dadkii iibinayay dharka ciida iyo qaar ka mid ah dadkii iibsanayay dharkaasi kuwaas oo ka warbixiyay inay tahay maalintan maalin ku qaaliya una astaysan ummadda islaamka meel kasta ay dunida dacaladeeda ka joogaan iyo habsami socodkii hanaanka loo kala iibsanayo dharka Ciidul Fidriga hadaba ay ciidan u noqotay ciidii ugu dhar iibsiga badnayd xagga ganacsiga magaalada Burco waana kuwan iyaga ka hadlaya arrinkaasi ciidan waa iibsan in soo marjay aad uga farxan aad uga hayay wana idaraabteed aan ku kala galnay soo aan u diyaargaroobay waxay bilaabantay maxay ku bisha ilaa iyo hadda way socotaa hadana ilaahay baa iska leeyahay soo gudbiyay si fiican oo socotaa ma furan ku soo dhawaada yani ninka waxa laga diiwaan شاما خير برمجينا السلام يا بابا تلفزيونك عاكا سومالي جنة وحلنا همبوليو وسوى احنا نبيسيو ما شاء الله عالي بس وحنا يجينا نكو على وجهي وسعت وسوى انا نفهم مركب بيشنج ولا بليو يكون استروا سيداني لا يحمدي نبعي كرب النسيه كما ترى كريم سيد ابنها وحنا سوسعتا مريم والفرح معناتها بيدان لواتنا سي اخر تاهي مانتا waxaan aad iyo aad ugu diyaar garoonayo ciidka si aan ugu diyaar garoono awgeed waxaan marka ku yimid maryahan aad baan uga iibsadaa وبرواقاذ محمد شبكة عالمية داد مدير نيوز مقالة برعو.